الدرس الخامس المد بالألف. عشر كشنات ومدك ألفك. مد معنيه دوحة ويه والشقل كدير. حركة دي فتحة أهي يعني صوم الرأي يمرك ألف بعد الله صار وأقرس مسيامة ودواق سي با تا تيبا ما أنت لا ديرينيا وحنا لقو ديريا ألفك. markaynu bilownay xuruufta hijaayada waxaan idin sheegay alifku inaanu 28 xaraf kamid ahayn laakiin hamzadu ay booskiisa degi doonto oo isagoo aanu xarakada fatxada qaadan ee hamzadu ay booskiisa fadhiisan doonto waynu soo aragnay. marka imika fatxada waxa lagu dheereeyaa alifta, kasradana waxa lagu dheereeyaa ya, damadana waxa lagu dheereeyaa waaw. marka waxa la kala yiraahdaa almad bil alif almad bil ya